سلام كبعدي بلورت فاتحة مرة إلهي أدون كاسين وحريتي سوسو علي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله ينقى أقبله خياري هرت الله الله لو ما الله الله هري لو ما الله هذا الكي واحد دمي صلاة دينته إذا دمي أنا بقول حاله النبضان أفيانو أقولها النبضين تيو دبهشين تصوماليات waxa ay ku hadleen maana la qaba laba qodob oo aad ka hadasheen baan marka in yar ka taaban midda koowaad waxa tiraahdeen koonfur galbeed meel walba waa ka xiran tahay albaab walba waa xiran yahay tan aanu nahay cabashaad ka muujiseen anigu waxaan idin leeyahay in daaya waa wada qabnaa daawashiya ceebe kaxlan deganahay saakan ka soo baxay saddex baabuur baan soo raacaa marka hadda noqonayna saddex baabuur baan raaca kaxal marka koonfur galbeed miya marka taas horta waa wada qabnaay inoo daayay gumaysiga lixdanka sano waxa la nagu isu keenay inta kadib markaan u soo noqdo mukhtaar roobow horta waxay odayaashu kaga hadleen oo marana la qaba hase ahaatee anigu waxaan aaminsanahay markaan mukhtaar roobow ka fakero fakarkayga inuu dawladda u xirnayna al-shabaab u xiran yahay oo dawladda iyo al-shabaab heshiis ku yihiin mukhtaar inuu ka xirnaado waayo mukhtaar roobow 5 sano al-shabaab buu la dagaalamay hawdku ku jiri dawladdu waa soo xaraysatay xukun buu doontay xukunkii waa loo diiday xoog baaba loo sheegtay laga qaad maanta meel uu xukun ka doontaa ma jirto oo madaxweyne koonfur galbeed leedahay dawladdan kale ta wali lama gaarin doorashadeed hadduunan u xirnay warna nagu soo daynin sidii uu noola dagaalamayaa anigu waxa qaba hadduu dambi leeyahay in maxkamad la saari lahaa hadduuna dambi lahayn in la sii dayn lahaa ee heshiis buu ku xiran yahay saa darteed hadda ka hor baa dawladdii maxaa saad barre markii ay jirtay yaa waxaa la xiray maxamed xaaji ibraahim ciyaal baa xirnaan jiray wasiirka arrimaha dibaddana waxaa ahaa cumar carte qaalib waa la bedelo waxaa lagu bedelay cabdiraxmaan jaac barre nin reer hargeysa baa gabay tiriyey cabasho ah gabaygiiba waxaan ka garanayaa carte iyo walaalkaa waxay isweydaarshay waxa ina cigaal loola haray caabuq nagu reebiye cagta naga dhigiya naasiyaada wax dhammaan caasi kaa noqone anigu hadda waxaan leeyahay inaanan reer koonfur galbeed ahayn luuqadaydaad ka garanaysaa madaxweyne shantii soomaaliya aanan u dhanna ergaan kuunna erge islaam baanu kuunna erge soomaaliyeed baan kuunna waa mukhtaar roobow hadduu dembi galayna maxkamadda saar berrito hadduuna dembi gelina berrito xabsiga ka soo daa meesha hadduu heshiis u xiran yahay aad ku gasheenna dee adeeday u taalla way soo bixi xaqana haddii afka laga daboolo feeruhu ka dilaacaa 2 sano adduunka laguma arag taariikhda 2 sano qof bilaa maxkamad iska xiran anigu taasaan aaminsanahay wuxuu yidhi ninkii geela laga dhacay ee ugaaska u tegey nin ciroobay cadaabkii waa lagala ceesaaye rag cadaaday baa nagu jira ugaas geela noo celiya war culumo iyo ciroolaan u badanna waadna aragtaa kamarada bal nagu eega culumaanu salaadiintii baana dib heshiinta Soomaaliyeed baan u taagana maanta inaad mukhtaar roobow na siisaan madaxweyne ka codsanayna oo ilaahay dartii nagu siiso oo madaxweynenimo nagu siiso oo Soomaalinimo nagu siiso yaa ka codsanay hatta hadduu dambi leeyahay noo soo daa saamax markaan isaga saamaxda adna ilaahay baa ku saamax 2 sano wuxuu ku xirnaana qadar Allah noqoto haddana waxaan doonaynaa maanta inaad soo dayso oo mukhtaar roobow berri uu halkaan nagala qadeeyo yaa ka codsanaynaa inta wixii ka soo hara wax allaala wixii Soomaali dhib ah ka dhaca haddaad soo dayn weydaadeen mas'uuliyaddeeda qaadanayo